xakaar iyo xiiq badan kadib taalladii doorashada ayaa loo ruqaansaday kooxo badan oo kala dana ayaana xoogga ugu badan gelinayay gaarista heshiis doorasho si looga baxo taagnaanta siyaasadeed dalkana uga badbaado deganaansha la'aan siyaasadeed oo dibdhac weyn u keentay hannaanka geeddi-socodka dowladnimada curdanka ee Soomaaliya 27 May koox kasta guul ayay filatay waxay heensaysatay dhaanka si reerka loogu furo guryo rays leh magacaabista guddiyada doorashada ayaa rajo kasta oo koox filatay ku xirnayd 3 koox ayaa awoodda ugu badan geliyay heshiiska 2 isku dhinac ah iyo koox laga dhacsanaya talada waxaynu eegaynaa hadda yaa toodii socotay waxaana marka koobaad isla baranaynaa 3 kooxood ee hardamayay kooxda koobaad waa bugaanbugta badbaado waa kooxaan howlqalo isku ahayn isku dan ahayn siyaasad ahayn kooxdani waa kooxda UPD Xasan Sheekh Aala Sheekh Shariif Daljir wadajirta Cabdiraxmaan Cabdirashuur Warsame iyo hayaanka cusub Xasan Cali Khayre kooxda labaadi waa anti farmaajo musharaxiin qarsoon oo madaxweynayaal dowlad goboleedyo hogaaminayaan oo lagu daray Jubbaland iyo siyaasiyiinta daale ee Shariif Xasan Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdi Xaashiga aqalka sare kooxda saddexaadi waa NN ama nabad iyo nolol mustambeedkana uu yahay farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadeed ee kula jira gudaha iyo xukuumadda uu hogaamiyo Rooble kooxda hore waxa ay ku midaysnaayeen wiiqista awoodda fiilada farmaajo iyo saaxiibadiisa balse xogta ka soo baxday guddiyada la magacaabay ayaa diirka ka qaaday booga qarsoonaa oo aan dhayid iyo daaweyn loo haynin uma muuqdaan in boogahaasi loo heli doono dhakhtarro lagu dabiibo iyo sariire la seexiyo toona sida aan warbixinteennii hore ee maalmo ka hor ku sheegnay 6 qodob ee aanu ka baahinay Rooble ayaynu ku sheegnay koox la baxday Barogaalkacyo waa koox cusub oo budhigu ay u tahay danta Gaalkacyo iyada oo la marayo miqyaaska ilmo dahaba toolmoon ama si kale aan kuu baro cadaada gurceel iyo dhuusamaree midowgooda magacaabista guddiyadan 3 koox ayaa macaash sare oo doonistooda meel sare ay u goysay waana kooxda mindida daabka u haysa ee nabad iyo nolol kooxda Rooble iyo musharax Xasan Cali Khayre oo la rumaysan yahay in uu kooxda waayo arag si adag ugu adeegtay ama dhex maray helayna xubno saamayn badan yeelan doona aan soo degdegne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka soo laabtay Turkiga maalmo ka hor magacaabidda xubnaha guddigiisa ee lagu dhaganaa ayaa qoray farsiyaasadeed aysan filasho badan ka haysan nabad iyo nolol waa in uu keenay xubno mucaarad ku noqon doona laakiin cidda aqlabiyadda guddiga heer dowlad goboleed heli doonta ayaa isweydiimo ay dul hoganayaan qoorqoor oo ku jira isbadbaadin siyaasadeed oo dambe ayaa guddigiisa xubno aan qarsoonayn ka siiyey booskiisii hore Xasan Cali Khayre Geedi sidoo kalena waxa uu u dhexmariyay oo damaanad qaad kuraasta ah ku dhajiyay kooxda la baxday waayo arag siyaasadeed waana saaxiibadiisa kursiga qaybta xoogan ku lahaa imaanshihiisa laakiin waxa uu dibadda dhigay oo u dayriyay koox goor dambe uu soo xerogeliyay oo u badnaa saaxiibadii Xasan Sheekh Maxamuud wadaadka qunyar socodka ay horay Mareykanku ugu sifeeyeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed madashii 27 Mayna u muuqday inuu iska mayrayo garaafooyin hadalla horay uga dhacaya si weyn looma oga saamaynta xubnaha qaar uu ku leeyahay mid ka mid ah kooxda maamuuska ee Cali Guudlaawe oo guddiyada ka soo dhex muuqday ayaa loo arkaa inuu noqon karo xubin Shariif ka timid balse saaxiibada Shariif ee siyaasaddu waxa ay leeyihiin dagaal siyaasadeedkii aan galnay waxa uu yoolkiisu ahaa in doorashada la qabto shaacinta magacyada xubnaha guddiga ayaa mar kale abuurtay xiisad aan loo joojin doonin waqtigan qaylada ugu badan ama waxa uu ka imaan doonaa siyaasiyiinta galmudug ee la olaga ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo xisbigiisa UPD Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga laftiisu diiday sida markii horeba wax u socdeen waxay dagaal adag ku qaadi doonaan kooxda uu hogaamiyo Rooble guuleedna ku laban yahay Aala Sheekhda Shariifku way ka aamusi doontaa hardanka cusub Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne hore mid ka mid ah xubnihii ugu hadalka iyo dhaqaaqa adkaa bilihii la soo dhaafay ayaa u muuqda inuu khasaare siyaasadeed kala kulmay
magacaabidda guddiyada oo uusan helin xubno saamayn iyo xataa muuqasho leh laakiin gudaha durbadda maanad la'aan ayay wajihi doonaan saaxiibbo badan oo ka mida garabyadiisa inkasta oo uu yahay musharax weli haysta kudlad badan oo isku abaabulan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo dagaal siyaasadeedkiisa mucaaradnimo mar ku soo ahaa keligiis aaminsanaa inuu noqon doono ninka ay ugu badinayso wuxuu u muuqdaa inuu ban cilla joogo luusar siyaasadeed dagaalka ugu badan ee guddiga uu ka tirsanayay waxa uu ahaa in la beddelo nambarka labaad ee guddiga galmudug ee heer dowlad goboleed doorashada maamulaya maxamed daahir guuleed oo u dhexeeya dagaal shakhsiyadeed laakiin qoorqoor wuxuu u muuqdaa inuu u qoorgoynayo rajada warsame qofka labaad ee magacaabidda xubnaha guddigiisa ayuuna ka dhigay maxamed daahir cabdiraxmaanna ka hor magacaabidda guddiyada kama baaqsan inuu sii sheego in 20 xubnood oo niise ka tirsan una adeegaya fahad iyo farmaajo ay ku jiraan guddiyada cusub xubnaha gobollada waqooyi sida muuqata min 4 xubnood ayay kala magacaabeen mahdi iyo cabdi xaashi laakiin sheekada xiisaha leh ee iyana ku jirta waa in wasiirro ka tirsan xukuumadda rooble ay kuraastooda cabsi ay u qabaan awgeed xubnaha cabdi xaashi ka soo dhexadleen farmaajo iyo saaxiibbadiisna waxay raajicin kale ka heleen xagga xubnaha uu magacaabay rooble ee 3 oo ay 2 qaateen halka midka kalena mar kale xasan cali khayre uu jilaabtay fahad yaasiin oo ay midowga musharaxiinta qaarkood doonayeen in la yareeyo saamaynta uu guddiyadan ku leeyahay ayaan waxba khasaarin marka aan eegno tirada xubnaha u soo gashay in la beddelay magacyada anas cabdicasiis cabdinuur maxamed cabdirisaaq qaasim kama dhigna in 3 qof oo cid kala wadatay ay timid balse waxaa boosaskaasi buuxiyey cali mataan xasan oo haysta dhalashada norway degganaana UK oo beddelay cabdinuur maxamed xuseen caynte oo lagu beddelay anas cabdicasiis kana yimid hirshabeelle cali guudlaawe saaxiibbadiisa nabad iyo nolol ma qadin 3 xubnood ayuu siiyey shariif sheekh axmed uma darnaan laakiin siyaasiyiinta kale ay isku goofka yihiin dhibicna ma tarin uma muuqdo inuu bixiyey damaanad qaad haddana kuraasta isku haysiga badan ka taagan ee yaalla beledweyn iyo jawhar dhinaca kalena dagaal badan ma jilaaban guddiga inta aan la magacaabinna waxa uu gaaray istanbuul turkiga si uu uga madax qarsado hadallada iyo buuqa siyaasadeed xagga koonfur galbeed madaxweyne goboleedka lafta gareen ayaa si weyn isaga diiday dalab uga yimid wasiirka koowaad injineer maxamed xuseen rooble oo ahaa in wasiirka batroolka soomaaliya lagu taageero wax u muuqda dhac siyaasadeedka kursigiisa laakiin lafta gareen waa diiday arrintaas ha yeeshee rooble kama baaqsan inuu kursigaasi mar kale ugu heliyo master shiikhaalow wasiirka batroolka soomaaliya oo xubintii uu doonaya heer federaal uga soo muuqatay arrinta doorashooyinku waa xasaasi axmed madoobaha jubbaland cidna kama faa'iidin wuuse ku guulaystay in aan la celin axmed cabdinuur oo ah xubin ka tirsan guddiga batroolka ee heer federaal oo ku soo daray guddiga heer dowlad goboleed ee doorashada uuna doonayo inuu ka dhigo guddoomiyaha guddiga waana shakhsiga oo axmed uu doonayo inuu ku aamino kuraasta garbahaare taalla malafkooda ugu dambayntii puntland madaxweyne deni waxa uu ku guulaystay in kursi ka mid ah 3 xubnood ee ka imaanaya heer federaal kana mid noqonaya guddiga heer dowlad goboleed ka beddelo 1 xubin oo ah ibraahim siciid saalax laguna beddelo salaad xareed cali oo si weyn looga garanayo gudaha puntland laakiin isbeddelashada dhacday ayaa ah in guddiga uu ka soo dhex muuqda mukhtaar cabdulaahi cartan walaalka mid ka mida isimada ka soo jeeda gobollada haylaan iyo sanaag oo ka yimid xagga wasiirka qorshaynta soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ay ku loolameen xubintan madaxtooyada puntland